gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe oo muddooyinkii u dambeeyay dalka dibadiisa ku maqnaa ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana uu ka soo degay madaarka Cigaal ee caasimadda magaalada Hargeysa waxaana halkaasi kaga hortagay mas'uuliyiinta ugu sarsaraysa ee xisbiga mucaaradka UCID iyo taageerayaasha iyagu kalsoonida buuxda ka haysta xisbigaasi isla markaana hamuuta uu qaba musharaxa xisbigaasi UCID injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe waxaana halkaasi ay ugu sameeyeen soo dhaweyn hayeeshee taageerayaasha iyagu halkaasi kaga hortagay ayaa ahaa taageerayaal aad u tiro badan hayeeshee injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe isagu halkaasi ka hadlay soo dhaweynta loogu sameeyay ayaa markii ugu horeysay afka u furtay isla markaana uu carabka ku dhuftay waa sida hadalka u dhigay in dagaalka ka socda deegaanada Ceelafweyn in uu siyaasadeysan yahay injineer Faysal Cali Waraabe isagoo arintaasi ka hadlay waxa uu yiri لكن والسياسة سنتها السياسة لقد ضيعوا لنا هاي إذا ما حلنا هاي ما تقول لي تعالات وتجيها أبي قراء ما يوم وحقول على شيء في السياسة قبيل وإلى النار أقول على شيء نار تكتشوا علينا إن شاء الله يعني كل خلينا geesta kale injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay isla markaana uu ka hadlay in wadanka Canada gaar ahaan magaalada King of Dema uu kula kulmay isla markaana kulan uu kala qaatay dad reer Somaliland oo shaki ka qabay Somaliland waxaana uu sheegay in ay kuwaasi kamid ahaayeen taageerayaasha Awdal State iyo Khartoum State waxaana uu sheegay in ay dadkaasi gabi ahaanba ay shaki weyn ka qabeen Somalilandnimada arintaasi injineer Faysal Cali Waraabe isagoo qaada dhigaya waxa uu yiri wadanka la ilaaho Canada qaybta la ilaaho Alberto magaalada Edmonton baa tagay halkaas oo kula soo kulmay shaariyad Soomaaliya oo dhantay Soomaaliya iyo Soomaaliya waxaan sheegay inay arintii dhamaatay saddexdii wadan ee kale waxay galayeen shaageen waxaan aleeyahay wax micno ay ku jeedaan Soomaaliya ku jirtay ay arintaas inay iska tawakaraan iska jooga qabsadaan baa u sheegay iyaguna reer Soomaaliland oo shaki ka qabay Soomaaliland oo ka mid yihiin taageerayaashii Awdal State iyo Khartoum State iyaga waxaan ku yidhi danteenu ma aha inaynu isdillo xalkeenu ma aha inaynu Soomaaliya ku darsaminaa xalkeenu waxa weeye dalkeeni waynu haysanaa inaynu waddankeeni hagaajino waddan horumar ka dhigno waddan loo soo hirta ka dhigno waddan gaajada ka suurta ka dhigno waddan lagu dirgala ka dhignaan ugu baahannahay waa inoo dhacaysa khudbada uu halkaasi ka jeediyay injineer Faysal Cali Xuseen musharaxa madaxweynaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo ahayd khudbad dheer ayaa ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay isla markaana hambalyo u diray gobolada Maroodijeex iyo Togdheer sida ay u qaateen kaarka codbixiyaasha ee doorashooyinka la filayay inay ka qabsamaan Somaliland 13 bisha November sanadkan 2017 waa sanadkan gabagabada ku sii jiray waxa kale oo hambalyo u diray injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland sida ay go'aanka geesinimada leh uga qaateen buu yiri labada xisbi ee wadan iyo kulmiye isla markaana komishanku ganaaxa ku soo rogay labadaasi xisbi kadib markii olole aan xilligiisa la gaadhin ay ka fuliyeen gobolka Togdheer isla markaa waxaan hambalyenayaa hay'adii komishanka qaranka ayaa iyadahay hambalyenayaa walaalayaa waxaa jirta
markii ay arrintaasi socotay labada xisbi ee kale waxay ka dayeen meeshii ololay sameeyeen markaa ay burcan ku tartamiyeen ee baabuurta dalka iyo lacagtii qaranka ay siteen walaalayaal in yar burca haddaad ka baxdin waxaa jirta xerooyin abaaro dadkii abaarsan ay degan yihiin oo biyalaa baa jiray lacagtay ku isticmaalayeen istuususka iyo qaabka biyey dadkaas u baahnahay sharcigiina waa jebiyo taasi waxayna tusaysaa walaalayaal siay dadka u kala qaybinayaan qaar qabyaaladna way ku kaambeengaraynayeen haddaba gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka injineer faysal cali waraabe waxa uu tartan xoog leh kula jira musharaxiinta xisbiyada wadan iyo kulmiye kuwaasoo u tartamaya hanashada madaxtinimo ee doorashooyinka la filaya inay ka qabsomaan Somaliland 13 Noofambar sanadkan 2017 isagoo midba midka kale uu isleeyahay markaasi hano taageero ka tiro badan midba midka kale waa Khalid Yusuf Xasan Khalid Fantastic naqal muqbaahiyaha caalamiga Somali News Hargeysa.